labadii habeennimo saqdi dhexe ee xalay magaalada Caracas ee caasimadda waddanka Venezuela waxay u ahayd habeen argagax leh. hawada waddankaasi waxaa dul marayay diyaarado guuxooda uu aad iyo aad u xoogan yahay. diyaaradahaasi waxay ka soo kacayeen maraakiib dagaal oo taalay badda Caribbean-ka iyo qaar ka mida wadamada Latin America. ujeedadu waxay ahayd 3 sano qorshe ah oo ay CIA-da Mareykanku ka shaqaysay howlgalkoodii in uu guuleysto ama uu guuldareysto labadaba. ciidamada Mareykanka ayaa diyaaradahaasi ku duulaya F-35 iyo F-16 diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwo kale oo dheeraad ah ayaa samada waddankaasi hadba dhinac u marayay. meelaha ugu muhiimsan ee bartilmaameedku ahaa waa magaalada Caracas, gaar ahaan bartamaha magaaladaasi oo ay ku yaaleen aqalka madaxtooyada uu markaasi hurday Nicolas Maduro iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo Silaya Flores oo hadda gacanta ugu jira ciidamada Mareykanka. haddaba waa la filan karay weerarkan inuu dhaco marka la eego dhaqdhaqaaqyadii socday. ciidamada Mareykanku waxay sameynayeen iyo goodinta Trump oo ujeedadiisa uu ku tilmaamayay in la soo gabagabeynayo kooxaha ka shaqaysta daroogada ee qatarta ku ah ammaanka dunida iyo nolosha shacabka waddanka Mareykanka. haddaba markii diyaaradaha ay hawada soo galeen waxa ay si toos ah u aadeen oo ay howlgab ka dhigeen nidaamyadii difaaca hawada ee waddankaasi Venezuela. Nicolas Maduro oo 62kii dhashay 2013kiina talada waddankaasi la wareegay aad buu u filan karay waddankiisa in lagu soo socday. laakiin marka la eego wadamadii uu saaxiibada la ahaa iyo waliba ciidamadiisa sirdoonku kama aanay war heli karin saacadaas iyo daqiiqadaasi in loogu soo gali karo aqalka madaxtooyada ee bartamaha Caracas ku yaala ee la yiraahdo Miraflores. kadib maxaa dhacay? diyaaradihii ayaa bilaabay in ay duqeeyaan guriga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga. waxay sidoo kale duqeeyeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo dhowr saldhig oo militariga waddanka Venezuela ay lahaayeen oo ammaankooda aad loo adkeeyay. intaa kadib diyaarad helicopter oo ah kuwa qumaatiga u kaca ayaa ku soo dhawaatay gurigii madaxtooyada dhismihii gaarka ahaa ee Maduro. nalkii iyo korontadii ayaa baxay. ciidamaduna waxay bilaabeen inay adeegsadaan nalal xoog leh oo diyaaradda laga shiday iyo tooshash. kadibna waqti kooban oo ay meeshaasi taagnayd degdeg ayay ku duushay. isla markiiba madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump oo bixiya amarka soo qabashada iyo weerarka Nicolas Maduro ayaa ku dhawaaqay ciidamada Delta Force in ay gacanta ku dhigeen Maduro, nin uu ku tilmaamayay hogaamiye 3 koox oo argagixiso ah oo daroogada ka shaqaysta. Mareykanka ninkan waxay madaxiisa dul saareen 50 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. aad ayaa loo raadinayay. uma aysan garanayn inuu yahay nin dal madax bannaan oo goba madaxweyne ka ah. intaa markay dhacdo kadib waxaa durbaba soo baxay baaqiyo kala duwan ee caalamka ka imaanayay. dowlado kala duwan ayaa durbaba calaamad su'aal la dul saaray. dalka Ruushka oo ku dhiig baxaya dagaalka waddanka Ukraine ka soconaya iyo dalka Shiinaha oo saaxiib la ahaa waddankaasi Venezuela iyo Nicolas Maduro. haddaba ma jirtaa aragti ka baxsan Maduro in loo weeraray oo meesha ku jirta, laakiin inta badan Mareykanku aanay bannaanka keenin. waddankaasi waxa uu haystaa kaydka ugu ballaaran ee kheyraadka shidaalka adduunka. dadka qaar oo wax taxliilinaya waxay leeyihiin tan ayay u badan tahay in uu Trump u weeraray. haddaba ciidamada Delta Force goorma ayaa la aasaasay? ciidamada Delta Force waxaa la aasaasay bishii November sanadkii 1977. waa ciidamo qabta howlgallo gaar ah, la dagaalanka argagixisada, fulinta howlgallada gaarka ah ee sida gaarka Mareykanku u adeegsado iyo waliba inay si dhaqso ah ku jawaabaan. waa ciidamo dalaayada ku booda
oo aad muhiim uga ah Mareykanka ciidamadan waxa ay ka mid ahaayeen kuwii qaaday weerarkii 2003 Ciraaq lagu qaaday isla markaana sababtay in gacanta lagu soo dhigo hogaamiyihii Carabtu ay ka baqi jireen isla markaana hadalka adkaa waa Saddam Hussein waxay sidoo kale qayb ka ahaayeen howlgalkii al-Baghdadi lagu dilay hogaamiyihii kooxda argagixiso oo gudaha wadanka Syria ka dhacay 2019 ay sidoo kale qayb ka ahaayeen howlgallo ciidda dhaafsan oo Mareykanku ay fuliyeen Trump caawa shir jaraa'id ayuu qabtay isagoo dhinacyo kala duwan ka eegaya wixii dhacay wasiirka dagaalka iyo wasiirka amuraha dibadda Marco Rubio iyo waliba Pete Hegseth ayaa dhinacyada ka fadhiyay aad buu u faanay waxana uu yiri waxa ciidamada Mareykanku ay qabteen haba yaraatee cid qaban karayso ma jirto marka dhowr dhinac laga eego waxaan dilnay buu yiri Qasem Soleimani hogaamiyihii kooxda Faylaq al-Qudus waa ciidamada gaarka ah ilaalada kacaanka Iran waxa aan dilnay buu yiri al-Baghdadi waxaan sidoo kale meesha ka saarnay buu yiri oo aan duqeynay xarumihii saddexda ahaa ee nuclearka wadankaasi la yiraahdo Iran waxa uu sidoo kale tilmaamay Madurona gacanta inay ku soo dhigeen inta markii uu joogo waxa uu yiri marka laga soo tago dagaalkii labaad ee adduunka ciidamadeenu waa kuwa ugu macnaha iyo dhadhanka wanaagsan adduunka marka la fiiriyo howlgallada iyo waxyaabaha ay sameynayaan inta kuma ekayn madaxda wadamo fara badan oo ku yaala badda Caribbean-ka ama muxiid al-Hadi meesha la yiraahdo ayuu digniintii ugu dambeysay siiyay madaxweynaha Colombia ayaa waxa uu ku yiri waa in aad digniin gaar ah qaadataa sababtu waxay tahay waxaan la soconnaa inaad leedahay warshado kokaynta lagu sameeyo sidaa daraadeed calaamad su'aal ayaa ku dul saaran kuwa kalena waxa uu ku yiri isu badnaada wadamada Ruushka iyo Shiinaha oo aad loo filayay inay howlgalkan wax uun kaga taageeri karaan badbaadinta Maduro waa noqon weysay oo caawa war ay sheegaan waxay ku soo ekaatay kaliya in ay ka soo horjeedaan in wadankaasi madax banaanidiisa lagu xadgudbo Trump oo u jawaabaya waxa uu yiri anigoo ma baahni in aan ka hadlo ninka la yiraahdo Putin kuma faraxsani sababtu waxay tahay waa nin dad fara badan laayay oo aan macno lahayn inta ayuu uga gudbay mar xitaa wax laga weydiiyay wada hadal goor dhow ay yeesheen maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku yiri iskumayna soo qaadin sheeko ku saabsan Venezuela hadda marka adduunku waxa uu eegayaa wadanka Venezuela la yiraahdo xagee ku socdaa wasiirkii gaashaandhigga ayaa caawa ka soo muuqday warbaahinta xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Venezuela waa hadlay waxay yiraahdeen dadka ayaa la abaabulayaa waxana ka soo horjeesanaynaa wadankeena in xadgudub lagu sameeyo haba yaraatee ma aqbali karno Trump waxa uu yiri Pete Hegseth oo ah wasiirkiisa dagaalka iyo waliba wasiirkiisa amuraha dibadda Marco Rubio iyo koox reer Venezuela ah ayaa maamulka wadankaasi aan u xil saari doonaa hasaatee dadka qaar waxay leeyihiin waxay u ekaan doontaa xaaladdu inay aad uga sii cuslaa doonto sida loo fududeysanayo maadaama ay joogaan kooxa daroogada ka shaqaysta aadna u hubaysan wadanka Venezuela la yiraahdo Mareykankana waxa uu leeyahay ciidamadeedu ma aha kuwa kaftan gala inta waxa dheer madax kala duwan oo Yuruba ayaa hadashay Francisco oo kale waxay yiraahdeen wadankaasi maanta ay leertii xorriyadda u bilaabatay waxa sidaas yiri madaxweynaha wadankaasi Francisco ra'iisul wasaaraha wadanka Talyaanigana waxay leedahay aad baan ugu faraxsanahay Maduro meesha in laga saaray laakiin ra'iisul wasaaraha wadanka Spain waxa uu yiri Maduro maynan aqoonsanayn ku xadgudubka wadamada madaxa banaana ma aqbali karno oo waxa uu Trump sameeyay waa waxaan la qaadan karin haddaba adiga aan ku weydiiyo mustaqbalka wadankaasi wuxuu kula muuqdaa maxaa laga baran karaa in hogaamiyihii dhamaa ee wadankaasi si dib yar wax ka yar 3 saacadood gacanta lagu soo dhigo aad baad u mahadsantihiin